galab wanaagsan dhammaan dadka halkan joogo. Waxaan ahay Rila Kashmi Ayar. Waxaan ahay Hindu. Dhab ahaantii waan rumaysanahay Islaamka. Maxaa yeelay waxaan helay xaqiiqooyin ka mid ah. So when you said God is one, religion is one, Sidaas darteed markaan dhaho Ilaahay waa keli, diintuna waa keli. Iyo ogolaada inaan soo qaato tusaale 3 qof. Hindu, Muslim, Kirishtan. Ka soo qaat haddii aan jirkooda goyno. Maxaa ka soo baxaya jirkooda? Dhiig oo kaliya, waa dhiig. Caano maahan, biyana maahan. Waa dhiig oo kaliya. Markaan jirkooda goyno, haddaba oo dhiig ka soo baxayo. Maxaa loo kala farqinaa markay naftu ka baxayso? Muslimka way duugaan meydka, anagoo Hindunana waan and gubnaa. we Hindus we go by lighting the fire. walaasheen waxay sheegtay inay qadarinayso islaamka oo ayna rumaysan tahay diinta islaamka. waan ku tahniyadeynayaa waana kugu soo dhaweynayaa diinta islaamka oo quduucida iraadadaada lillaahi azza wa jalla. su'aasha ay soo turtay walaasheen oo ah Muslim, Hindu, Christian dhammaantood waxa ay leeyihiin hal naf, hal dhiig, hal jiritaan ayay leeyihiin. laakiin markay dhimanayaan maxay Hinduusku u gubaan meydka marka ay muslimiintu ay duugayaan? inooda marka aan taxliilino waxyaabaha dhibaatada ka dhalanayo iyo waxyaabaha wanaaga ka dhalanayo, adiguna marka kadib go'aan ka gaar labadooda kan fiican. Hinduuga waxa suurtagal ah in ay duugaan mararka qaar meydka ilmaha yarka oo kala tusaale, laakiin markii uu qofku qaangaaro badana kooxaha Hinduuga waxay dhahaan waxa waajib in la gubo. waxaa jiro kooxaha qaar oo dhahaya waxa waajib ah in la duugo. laakiin aan bal isbabar dhigno waxyaabaha wanaaga ka dhalanayo iyo xumaanta ka dhalanayso gubitaanka iyo duugida. haddaan isbarbar dhigno islaamka waxa waajib in la duugo qofka. sabab maxaa yeelay maanta waxaan gaarnay garasho iyo cilmi. si kasto ay ahaato dhulka ciidda waxay ka kooban yihiin sheeyaal asaasi ah jirka marka loo fiiriyo yaraan iyo badnaan. idan dhulka ayaa marka hore ka nimid, marka dambana waa u noqonaynaa oo waan ugala duugayaa. cilmi ahaan isbarbardhigoo kale kan ugu horeyn meydka in la gubo, waan gubaynaa meydka waxaana ka dhalanayo wasaq, hawada oo wasaqowda. islaamka waa ay duugaan, dhulkuna waxa ay noqonaysaa mid carasan ah, lama helayo wax wasaq ah, lama helayo wax gubitaan ah. midda labaad, marka wax la gubayo geeda ayaa la jarayaa, meelihii quruxda badnaana hoos u dhac ayaa ku imaanaya, bii'adii way qarribmaysaa. islaamka marka qofka la duugo dhulku waxay noqonaysaa carasan, geeduhuna waa ay korayaan oo waa ay badanayaan, ileen lama jarinayo. wax intaa ka badan ma lahan, geeda lama jarayo. sidaas ayaana u fiican meesha. xukuumaddu markasta waxa ay tiraahdaa geedaha yaan la jarin. haddii aan geedaha jarin sidee dadka dhintay u gubaynaa marka? midda saddexaad, arrinta gubitaanku waa la iska lifayaa. sanad kasta 100,000 oo karoor ayaa lagu bixiyaa. 100,000 oo karoor ama malaayiin lacagta Hindiga ayaa lagu bixiyaa. maalin kasta karooryaal rubi ah ayaa lagu bixiyaa oo la sarifaa. sanad kasta 100,000 karoor oo rubi ayaa la sarifaa. geedaha oo kaliya iyo weliba in meydka la gubo. diinta islaamka markaa u nimaano, markii aan duugayno meydka waa raqiis, lacag la'aan. qaybta shanaad, marka qoryaha la gubayo waxa ay noqonayaan dambas. laakiin islaamka markii aan duugayno meydka isla dhulkii waa sidii mar kale ama sanado kadib ayaa la isticmaali karaa. waa sidaas weligeed, waxaana suurtagal ah in la soo celiyo sanado kadib markii ay lafihii baaba'aan. waxaa suurtagal ah in meeshii adeegsigeeda la soo celiyo mantiqi ahaan iyo cilmi ahaan. haddii aan isbarbar dhigno qof cilmi ahaan kan badan iyo insaani ahaan ka badan, waxaana fadli badan in la duugo marka la barbar dhigo gubidda. waxaan rajaynayaa inaan ka jawaabay su'aashaada.